wasiirka duulistii hawada Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar ayaa sheegay inay wax ka yar 2 toddobaad ka dhimantay in hawada dawladda Soomaaliya ay si buuxda u maamusho hawada Soomaaliya kadib dhowr iyo 20 sano hawada Soomaaliya ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku maamuleysay hay'adda ICAO ee qaramada midoobay hawada u qaabilsan wasiirka oo socdaal ku maraya waqooyiga Ameerika ayaa sheegay in haddii Soomaaliya ay dib u hanato hawadeeda laga maamuli doono airportka magaalada Muqdisho halkaas oo qalabaynteedii la soo sameeyay ama la dhameeyay Sahar Cabdi Ahmed oo studio igu helisay ayaa wasiirka duulistii hawada Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Omar arintaasi ka wareysatay bishii May iyo bishii September labadaba waxaan tagay Montreal oo ah head office-ka hay'adda la yiraahdo ICAO oo u qaabilsan dawladda rayidka ee adduunka oo UN-ka hoos tagta isiyadii ugu dambeeyay meeshaas ay September 12-keeda soo saxiixanay oo lagu soo wareejinayay Soomaaliya hawadeeda in laga maamulo wadanka gudihiisa marka alxamdulillah arintaasi way iska soo dhamaatay wixii procedure ahaan isla markii waxaan bilaabnay rakibaadda qalabkii meeshii ugu dambeeyay hadda maraya 28 bisha waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed dawladda ka raali noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhameystirayay qalabka lagu maamulayo hawada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho looga maamulayo xaflad weyn ayaan sameyn doonaa insha Allah taala oo lagu daahfurayo qalabkii ku rakiban hawada diyaaradaha Soomaaliya hawada dusheeda mara waxaa lagala hadli doonaa magaalada Muqdisho ilaahay ka raali noqdo marka sidii aan ballan qaadnay sanadka inta uusan dhamaanin 28 bisha hawada qalabka lagu maamuli lahaa uu dhameystirmayaa shaqadana way bilaabmaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo ilaa iyo bishii January dhexdeedana waxaan sameyn doonaa waxa isla shaqeyn doona in Nairobi labadaba laga wada shaqeyn doonaa February dhexdeeda waxaan bilaabi doonaa insha Allah qalabkii naga yaalay Nairobi la soo xiro haddii ilaahay ka raali noqdo xafiiska Nairobi ilaa iyo bisha March dhamaadkeeda waxaan rajeynaynaa in complete la xiro qalabka yaalan la soo furfuro haddii ilaahay ka raali noqdo iyagoo noo isticmaali doono meelo kale oo Soomaaliya kamid ah marka alxamdulillah wayna arintaas waa arin soo dhamaatay waayahay dhinaca amniga iyo tasiilaadka iyo goobta wax laga dhigayo shaqaalaha xirfadooda iyo waxaas oo dhan ma laga sii fakiray mise waxay yihiin wax gudaha wadanka lagu sameynayo laakiin wali ay gacanta kula jiraan hay'adda ICAO oo qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca duulista muddada soo haysay maamulista hawada Soomaaliya haddii aad fiiriso wadamada kale ee dariskeena iyo wadamada adduunka dhan shaqaalaha ka shaqeeyo waxaa ku jira dad ajnabi ah soo dad ajnabi ah oo haddaba ICAO u shaqeeyo iyo hay'adda ICAO intaba lugta way ku yeelan doonaan marka aan Muqdisho u soo wareego shaqaalaheena tababar ayaa u socda tababaradaasi marka aan dhamaystirno oo aan yeelano shaqaalo Soomaaliyeed oo ku takhasusay keligood maamuli kara ayay gacan Soomaaliyeed wada gelaysaa inta ka horeysa waxay noqon doontaa ICAO iyo shaqaale Soomaaliyeed shaqaale ajnabi u shaqeeyaan iyo annaga oo supervision kala soo dawladda Soomaaliya oo supervision kala insha Allah taala maalinta aan diyaar ka nahayna 100% gacanta Soomaaliya ay ku soo wareegaya ahmiyadda ugu weyn ee annaga aan hadda xisana waxay tahay 27 sano muddo ayaa waxa laga wada maamulay wadanka gudihiisa marka wadanka gudihiisa in laga maamulo qaaraha ku baxay wadanka dibadiisa in wadanka gudihiisa ugu soo laabto halkaas maamulno supervisionka annaga yeelano oo annaga supervisorena ayaa ahmiyadda marka taasna hadda ay bilaabanaysaa waa garta qofka marka Soomaaliya joogo ee laga yaabo inuu xataa barbaaray ama uu koray xilliyada dagaalada sokeeye wax badan aan ka aqoonin hawo inay dawlad maamulato ahmiyadda idinkugu jiri karta ee u sharaxi karto maxay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay hawadeeda dib u hanato oo la soo wareegto maamulkeeda sida adiga haddaan tusaale ahaan u soo qaadno waxa weeyaan xorriyadda wadan complete ma aha haddii hawada dushiisa ah diyaaradaha maraya ay maamulayaan ama laga maamulayo wadan shisheeye marka waxay noqonaysaa annaga oo xurnimadeena dib u helnay oo kale ayaa arrintan aad ka soo qaaday waa gartay marka waxaad bal iga warantaa dhanka amniga markii la eego waxyaabaha waxay ugu jirtaa kaalinta ugu muhiimsan Soomaaliya sida loogu aamini karo amniga ayaa qayb ka ah in dawladda Soomaaliya damaanad qaadi karto marka goobta amnigeeda iyo sida aad u sugeysaan wax ma nooga sheegi kartaa macnaha sida la socoto magaalada Muqdisho oo ah meesha laga maamuli doono hawada dawladda ka raali noqdo meesha ugu amniga adag waa garoonka Aadan Cabdulle International marka Aadan Cabdulle International ayaa ilaahay ka raali noqdo laga maamuli doonaa
halkaasi waxaa jooga ciidamo ajnabi ah iyo ciidamada dalka intaba amnigana waa meesha ugu amni badan ee wadanka hadda iyada oo marka lasoo wareejinayo shaqaalaha meesha ay degayaan meesha qalabka la rakibayo amniga hadda inta uu yahay laga kordhin doona haddii ilaahay kasaale noqdo marka amnigu runtii wuu sugan yahay haddeer wuu sugan yahay marka lasoo wareegana wuu sii sugnaan doonaa oo waa sii kordhinaynaa haddii ilaahay kasaale noqdo haddii amniga uu qalqal ku jiro ama wax concern ah ay jiraan hay-adda ICAO marnaba nooma ogolaateen inaan meeshaas kusoo wareejino shaqaalaha meesha ay degaan waxyaabaha projectka markasta dib u dhigaya waxaa kamid ah amniga sidii loo sugi lahaa shaqaalaha meeshii la dejin lahaa ayay ahayd marka alxamdulilah iyagana way ku qanceen annagana waan ku qanacsanahay in amniga hadda sida ugu wanaagsan ee wadankeena meel ay ka jirto ay noqon doonta haddii ilaahay ka raali waa tahay maadaama dalka wasiir hanaan federaal uu galay haddana hawadu waxay kamid tahay waxyaabaha habka qaranka ah sida aan dareemayo ama habka federaalka inay hoos imaanayso haddana ma jiri kartaa in maamul gaara sida somaliland oo kaleeto in ayagana gooni loo maadaama arrintan ay muddo soo noqnoqonaysay guud ahaan hawada ma meel gaara oo muqdisho un ahaa laga wada maamuli doonaa mase wax kalaa jiri doona hawada maamulkeeda waxaa laga maamuli doonaa muqdisho garoomada qaarkii waxaa joogi doonaa shaqaalo badanaa garoomada kale waxaa joogi doona shaqaalo ayagana meelaha ka maamulo qaybaha qaarkood oo waxaan yeelan doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo center muqdisho oo kale center kale oo lamid ah oo wadanka gudihiisa isagana laga samayn doono arrintaasi weli waxaa ka jira la tashi badan ayaan ka sameynaynaa meesha laga sameyn lahaa haddii ilaahay ka raali waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad waxaana uu waramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan